Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan sameynaynaa casho oo laga sameeyay baradho iyo hilib oo foornada la geliyay. Marka intaad miiska yaala loo baahan yahay daawasho wacan. Marka waxaad u baahan tahay baradho oo 1 kiilo ah, laba cheese kala bedelan, cheeseka caadiga iyo mozzarella, heavy cream, basal, broccoli, hilibka shiidan, olive oil, butter, tomatoes kana la shiiday saas loo shiiday, iyo xawaash badan aan isticmaalo. Waxaan isticmaalaa cusbo, Italian spices, xawaash, basbaas, paprika, chicken seasoning, cinnamon iyo xawaash kale. Marka waxaan ku bilaabaynaa inaan baradhada jarjarno. Halkan aan ku ridaa, kadib waan dhaqayaa. biyaha aad baradhada ku ridaysid waxaa la rabaa inay biyaha hoostiis ku jiraan 20 daqiiqo oo kale ilaa 25 daqiiqo ayuu dabka saarnaanaa. Baradhada intay dabka sii saaran tahay waxaa sii sameynaynaa broccoliga, waa sii jarjaraynaa. marka broccoliga ayaan hadda karinaynaa. waxaan umita ayaan ku karinaynaa. marka digsigan hoose biyaan ku ridaynaa, kana duleelyaal ayaa ku jiro. broccoliga halkan ku ridaynaa, dabool aan kor saaraynaa. baradhada waxaad ku duraysaa farkeeto. markuu baradhada jilaac yahay ayaad ka ogaanaysaa inuu bisil yahay. broccoligana sidoo kale farkeetaa ku daray sidaan ogaada inay bisishahay. hadda waxaan sameynaynaa baradhadii. waxaan ku bilaabaynaa inaan broccoliga aan shiidno. kanaan ku shiidaynaa. baradhadiina waan jijibinaynaa, labadaba waa isku walaaqaynaa. marka ugu dambeysna waxaan ku walaaqaynaa butter, olive oil, paprika powder iyo cusbo. sidaad aragtiin baradhada waan jijibiyay, broccoligana waan shiiday. marka waa isku walaaqaynaa. waxaan ku daray 3 qaado subag, 2 qaado olive oil iyo 1 qaadi baro cusbo. waxaan isticmaalo oo dhan iyo intaan isticmaalay hoos ayaan kusoo qoraa insha Allah.
ugu dambeys waxaa inoo haray hilibka waxaan hadda jarjaraa xabad basal, waxaan kaloo ku ridayaa olive oil 3 qaado iyo xawaashkii aan hadda ka hor videoga bilowgii aan sheegay. xawaashiyaasha aan hadda kahor soo sheegin waan ku ridayaa. waxaan ugu dambeeyo 3 qaado oo olive oil. aniga hadda waxaan ka dhigayaa kuskus 8 xabo, nus kiilaan haystay. haddaad rabtid kuwa yaryar waad badin kartaa, 10 xabo oo kale ka dhigi kartaa, kuwa waaweyna 6 xabo ka dhigi kartaa. baradhada iyo broccoliga waan isku walaaqnay. hilibkii aan sameyn waa kaasaa. kanna waxaa waaye kan foonada la gelinayo. barar aan sii mariyay. haddana waxaan ku bilaabaynaa inaa baradhada iyo broccoliga saarno. markaad baradhada si fiican u kala bixisid waxaad soo qabsanaysaa qaado oo saas u wareegsan. waxaana sameynaysaa duleelyaal aad u sameynaysaa hilibka sidaad hadda u gelgelinaysid. marka 8 xabaan haysanaa, marka saf walba 4 xabaan. waxaana fiican mar walba aad duleelka sameynaysid inaad qaadada soo qoysid, maadaama kan aad uu dhegdheg u yahay fudeeday kuu noqonaysaa. hilibka waan ku safnay. waxaan sameynaynaa hadda foonadaan gelinaynaa. 30 daqiiqo meesha ku jira 180 degrees. marka waxaa muhiim aad u ah inaad aluminium foil aad saartid siduu si fiican u korsamo oo uusan gubinin. sooska aan ku shubi lahayn hadda marka foonada kasoo bixinaa sii sameynaynaa. waxaa ka mid ah tomato sauce 170 milligram, waxaa waaye bakeeri oo wax yar ka dhiman, nus bakeeri oo biyo, nus bakeeri oo heavy cream,
ugu dambeyso hal qaado cusbo iyo hal qaado paprika powder. sidaan oo kale markay u karkarto ayaa dabka ka dibinaysaa. marka waa kan 30 daqiiqo ayuu foornada ku jiray. haddana waxaan saaraynaa sooskii aan hadda diyaarinay ayaan ku kor shubaynaa. kadib labada cheese iyo cheeseka caadiga iyo mozzarella aan kor saaraynaa. marka mozzarella iyo hilibkaan soo saaray hadana foornada ayaan gelinayaa. 5 daqiiqo kadib foornadan kasoo bixiyay sidaan u ekaaday. waa mahadsantihiin. waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.